asalaamu calaykum aniga axmed muuse kusoo dhowaada qaybtii saddexaad sidaan u sameeyey renderkan qaybtan waxaan kusoo jirna anakoo marayno kombiyuutarkan sidaan ugu bedel lahayn shaashada haddaan aadna material previewga waxaa arkayna inuu saaran yahay musawir uu qofkii sameeyey bahalkan saaray marka musawirkan sidaan u bedel lahayn runtii fududahay haddaan aadna material haddaa ka raadina screen mid ay ku qoran tahay waxaa arkayna mid ay ku qoran tahay screen haddaan aadna meesha ay ku qoran tahay shaderka qaybtaas kore waxaa arkayna waxyaalaha laga sameeyey sidii u egyihiin runtii waxaa jirtaa waxaa loo complex saaid u adag laakiin maadko waxaa keliya u baahanahay inaan bedelan waxay tahay musawirkan so filekan waxaa ku jira musawir inaan hamar taabano aan dhigi karnaa x soo u delete garay waxa dhan marka musawirkan gelilahan si aan u keenno haddaa musawir already haysatid kale si caadi u saari karta laakiin maadaama waxaa inaan saaro waxaa inaan ka qaado screenshot meeshaan aan kadib musawirkan saaro musawirkaasi desktop isla markii aaday inaad soo jiidid aa meeshaan geli kartaa kadibna wax kasta sidii kii hore ahay oo kale oo baanta inaad gelgelisid musawirka markaa gelisid musawirka wuxuu yahay in xoogaa lagu sameeyo zoom in laakiin waa la ekeysii kara haddaa aadna meesha ku qoran tahay uv editorka haddaa qaadano musawirkii si aan u aragno musawirkaas siduu eg yahay waxaa baahan tahay sida caadiga inaad dhahdid scale sida caadiga waxaa baahan tahay inaad taabatid s waxaa baahan tahay inaad xoogaa weynaysid aa geesaana la ekeysiisid 4 digees aa hubisid inay dhinaca shaashada ku jiraan okay marka waxaan rabaa inaan dhulka siino materialkiisa iyo qaanadaba inaan u ekeysiino qaanad alwaax marka website-yaashan waxaan dhigi doonaa linkiga hoose si aad kusoo download kartiin haddaa lacag u baahatiin waa sida kii hore u download oo kale laakiin si aad kulligood usoo download uma baahnid ciwaan website kasta oo aad ka download texturka laakiin website-kan text.com wuxuu uga baahan yahay inaad samaysatid ciwaan sida kii hore oo kale waxaa baahan tahay inaad file gaar samaysatid siiba texture.com sababtoo texture.com sawiraanta ku siinayo hal xabuu ku siinaa saas daraadeed hal file wuxuu ku sii texture.com dhan sidii hal meel kugu save gareysnaadaan runtii waxa u baahan dhan wuxuu ahaa colorka iyo normal mapka iyo roughness-ka intaas bas ugu baahanahay laakiin website-kan kale aan u isticmaali doono derbigeena uma baahno waxaa baahan tahay inaad dalbadid resolution-ka rabtid 2K 4K iyo waxa yaalo 8K laakiin labada kii ugu filan sababtoo computer side u fiican ma laba kii ay ku filan website-kan HDRI Haven waxaa rabay inaad kasoo download musawir oo 330 degree marka aad dhawto render dhaho sidoo iftiin ugu siiyo qolka dhan laakiin ma shaqeynaynin markaan duwa videogan laakiin hadda uu shaqeynaa website-ka saddexaad sidaas la eego kale isaga wuxuu ku siinaa zip file oo wax kasta ku jiraan hadda marka u samaysana file u gaare inaan kusoo laabano blender wax kasta aan u baahnay inaan iska qari karnaa intaanan ka ahan collectionka qolkeena waxaan taabtay qolkeena derbiga kadibna waxaa inaa qaybta materialka aan u sameeyey 3 xabo marka inaan qaybta shaderka inaan aadno mid kasto wana si caadi ugu soo geli karnaa runtii waxaa rabay inaan hamar ni wada macneeyo mid kasta wuxuu sameeyo iyo sida loo geliyo iyo sabab iyo maxaad ugu baahan tahay iyo sabab ugu baahan waxaa rabay inaan ii sheego laakiin waqti dheer ay qaadan haddaan dhaho mid kasta waxaan ii sheegaa sidaas daraadeed waxaan ku fikirayaa in hamar ka sameeyo video gaar sida loo sameeyo texture-yaasha ku qoran tahay Soomaali musawir calanka Soomaaliya soo download gareystay caadi laakiin musawirkan aad soo download gareysanayo musawirka maaha dhamaadkan isticmaali doono kan wuxuu ahaa tijaabo inaan ku fiiriyo inuu meesha diiqayo sida kii hore kale sida computerkan ku sameeyay kale aan ku sameeyay maxalliga derbigana lama ekaan bilowgii in aad qaybta ku qoran tahay UV editka aan kadibna aan la ekeysiyay alwaxyaasha qaanadane waxaan isticmaalay kuwan kusoo download texture.com laakiin maadaama alwaxyaashan ahayn kuwa wax musawirka ugu muhiimsan dadka markay soo musawirka arkaan ishooda hore kaga dhacayso cabaar waqtiyan siiyay si taxadar loo tartiiban u sameeyay mapping wuxuu ku fududeynaa inaad texture-ka aad kala jiidid wareejisid ama wax kasta ka bedeshid adigoo si tartiib ah taxadar loo isticmaalaysid waxyaalooyin badan aad tijaabiyay laakiin dhamaadka waxaan arkan ugu fiicnaa wuxuu ahaa numberka ugu fiican wuxuu ahaa eber dhibic 7
material kana sidaan u sameynay hadaaye modifier control l ka aan ku koobiyay oo kala ku sameyn karnaa material ka xataa inaad taabadid kan lahayn aadana taabadid kan leh aad taaban kartaa control l meesha ka taaban hadaaye modifier ka hadda waxa taabanayna material da ka fiirino preview ga material ku haysta laakiin size ka qaldan maadaama alwaax kor ka dheeriyahay kan hoose waxaan ku qasbanaanay inaan la ekeysiino asna laakiin hadaa bedelo lambarkiisa kan kaloo bedelnaa sababtoo ee link ahiin labadooda hadaa taabid meesha ku qoran tahay meesha lambar labada ama calaamadan kala koobiga wuxuu u yeelaa material cusub laakiin lambar uu yeelaa sida qaanad eber hal oo kale so haddii muhiim tahay magaca ka bedel laakiin aniga muhiim kan bis uu ahaa kama bedelaynin saas darteed aan iskaga dhaafay HDR ka ani sheegay waxa way bahaladan waaye environment texture waaye so nalka wuxuu ku fududeynaa inaad meeshaad ka isticmaal lahayd nal caadi ah inaad isticmaashid nal 330 degree oo kor hoos meel kasta laga arkayo blender marka soo dhaw gelisid dhowr xabaa ku jirta by default marka soo kuwa blender ku imaadaan isticmaalay render kan waxa isticmaalay saddex nal isticmaalay saddexda nal mid wuxuu yahay fill light oo nalka meesha dhan wada qabanayo laakiin waa daciif midna waa point light meesha ishaad ku dhacayso uu muujinaa kan kalene gadaal ugu soo iftiiminaa si uu usii muujiyo uu nalka gadaal ugu keeno maadaama nalka waxa muujiyo iyo nalka kale oo geeska kale maadaama ay kala fog yihiin waxaa ka dhigi kartaa laba kalar sida maxaa la dhihi jiray blue iyo orange oo kale kadibna wuxuu ku siinaa masawir qurux badan oo renderka hadda markaan render u arki kartaa masawirka siduu egyahay nalkiisa 100% perfect maaha laakiin waxaan hubinayaa bisla nalka inuu nalka quwadiisa inay ku filan tahay google masawirkii waan ka helay aan sheegay masawirkan kale inaan la jiriyay ama masawirkan kale ku soo dhalo gareys